بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قفك مؤمنك ذنبك ير إيا كوين إيا كوكس طبينو كتوبت كينويا. قفك مؤمنك وين التوبت لازمه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي خلقك كوكا دورتيا يا حلي مالنتي إن تضباطا شير كبدا أيان إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينا وحكى له أبا هني مركز مكو قفك الذنوب تكا توبت كينا إنه لي ماده أسبابها كان سنية إنه خير كاللازمه وأنا التوبة دادو تذبذب أنا كل أنا أدب النقطة حتى هذا أدب النقطة طيدها شكني سواء النقطة إلهي وغفور رحيم قابل الطوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل الطوب. غافر الذنب وياه وقفه هدو إيمانون كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافك الذنب هدو توبت كانين وقابل الطوب وطوبت الله وكا أقبلها هديك لنا نار تعالوغو مايدايا هدي أنو قال لما كوديماني نار تو مeel lagaga taahirinayo uska giidambigu kaga tagay marka inaad toobad uska gaskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga waxa baan qofka mu'minkiin inuu ku dadaalo inuu maydho uska gadambiga uskaga maydho toobad ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keeno sababaha ku gargaara dadka toobadana waxa kamid ah kow ikhlaaska kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin nabi yusuf markii alla ka warramayay ilaahay tilmaamayeen xumaha iyo fahshaaga waxa soo dhan alla ka weeciyay waxa lagu cileeyay inuu yahay adoomaha ilaahay ee mukhlisiinta ama la doortay ikhlaasku markaa wuxuu kamid yahay culimadu yiraahdaan waxa wanaaga iyo toobada qofka uu gargaara waxa kamid ah culimadu yiraahdaan toobadu qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya almujahada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن الدداشد وهذا خيرك كدداشد وحكم إذا وحيابا قفك مؤمن كاتوبد وقرقارة إنه رجد صادمه قصر الأمل أدات سنة وتسين ولندن ولد اللي يرى توبر باحرني هذا عرض كبا ملك الموت وغبطه وما باهنا مركاين الداء قاعدة دير سيدرادت قرير ميسيد وقت نفتو كابحيس تكلم معصيدو هداي بادتو معصبة عقوبة وكينتا معصيدة هديبا لغوسي عقابة يا متكالي سيدا وقيد وحفي عن قفك مؤمنكي سيدو النبي قول عليه الصلاة والسلام دريدا كن نقو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل مكة اللابة إياه جد أما مد غريب وماشا صوق قليبون هداد نيداد أملك هداد صوقها بس توبضاد way badanaysa waxyaaba toobada kaalmeeya waxa kamid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrka leedahay lagu arko macsidu balaayada wada tara lagu arko waxa kamid ah waxyaaba dadka toobada iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada baydhada kelinimadu nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan labadana waa shaydaamo saddexduna waa safar balay yani shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaayay aad ku la jooga waxa la mid ah inta aad firaaqa iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqa noqon baa fiican cibaado ku mashquul waxbarasho ku mashquul xoogsi ku mashquul waqtigaaga isticmaal waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhalinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato TV-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogaad culimmadu waxay dhahdaan waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobadana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can almuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id TV waxyaabahan xunxunee quranka faafiyoo dhan waxaa ka mid ah waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa من قارب الفتنة
bacudat canhu الsalaam ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahy haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib waxaa ka mida toobada waxa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo kuwa sharka qaba iskaga hadhi arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوتي في العقيدة waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay la yidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysatay waxa kan ayuu intuu yimi buu xadiiskii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faاstakfir illaah nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay unuu toobadkeen ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa toobaddaasi waxay keensanaysaa waynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantiid laga toobad keeno shar dhammaantiid ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiinta inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay ka umma ayaynu u baahanay inaynu toobad keeno ka afraad iyo ka ashkhaas ka caa'ila inaynu toobad keeno toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala khayrkana raacno intaasaan ku soo koobaya wallahu aclamu billahi towfiiq wasalaamu calaykum